السلام عليكم أصحابتي قالي شربت لك كسر هذا channel كيغا أميرة كوزين أصحابي ما تحاني وضع قراع أني نبعاديهن si fudud loo sameeyey ka faa'iidaysi wacan soo dhawaada videogan hadduu ku qanciyo like tan la dhaafin dhiirigelin ayaynu tahay sii share gareeya aad iyo aad u mahadsantihiin waa sabaayad ama chapati iyo maraq digaag aan inaba caadi ahayn maasha Allah sida quruxda badan ayuu ku soo baxay markaan soo dhameynina ka faa'iidayso oo ga faa'iiday familka caruurta dhammaantood insha Allah wuuna ku cajamin doonaa isla socod wanaagsan ilaa dhammaadka waa video qurux badan oo kooban maasha Allah wax badan ka faa'iidaysan dee waka like tan hanala dhaafina waad mahadsantihiin inta waxaan soo dhigtay baaquli waxaan ku soo daadinayaa 1 kiilo oo bur ah burka cajab ayaa isticmaalayaa kiilo waaye waxaa kaloon ku soo darsanayaa ilaa 5 qaado oo sokor ah qaado buuxda waaye qiyaasta waxaa kale oon ku soo darsanayaa cusbo aan badnayn ayadana wax yar iyo xabad ukun ah ukunta waxa waaye muhiim ma ahan waa iska deyn kartaa waa kaasa cusbadana wax yar waaye ma badno ka bacdi waxa waaye intaas ayaa isdhex galinaysaa waxaa ku soo qasaysaa bur ama caano ama biyo saa jeceshahay qiyaasta biyaha waa 3 koob taasoo ogaada asxaabteeda maxay sabaayada saa jeceshaa ka dhigan kartaa laakiin qamiir laguma daro weligaa sabaayad qamiira ku darin leebita ama bakimbo labaduba ha ku darin weligaa sababtoo ah looguma talgalin si fiican baa koodi hore isku dhexgelinaysaa qaadada adigoo isticmaalayo kadib waxaa waaye bacdaasa meesha dhigtay waan kusoo gadiyey sababtoo ah weelka igu yaraa marka waxaan jecelahay meel fidsan inaan ku fidiyo ku xasho waxay qaadanaysaa ilaa 1 daqiiqo camal oo adiga xoogan maasha Allah u xashaysaa وكاسه أصحابتي إلى الصعدة تفي عنا وحشي نفاس وايلين مركو باقول جيريا إبوا ملحش كرو كبعد شكو ما يرى قب كسينا يا أنت أصبح عندي أرسنا يا صغير وبوبسيس سليد أيام كسو شوي ميشان دكسيجا وحكلا أنكسو دادنا الدجاج أفر لغات إياه basal aan isku soo jarjaray digaaga fridge-kan ka soo bixiyay asxaabteeda saa horeen kugu sheegayba maraq digaag ayaan sameysanaynaa marka waa kaasaahe ila socdaa idin leeyahay wax yaraan isku yar huurinayaa basash iyo digaagii ka bacdi yaanya ayaa inta ku soo diyaarsaday yaanyadii aan ku soo daadiyay hasku huuraan ani yaanyadu way dhan bay u yeelaysaa wayna qurxinaysaa ka bacdi asxaabteeda isdhex galinaysaa hadana daboolka ayaa u sii dheereynaysaa 1 daqiiqo camal sii way huure way jajabay markaas easy noqonaysaa hadda waa kaas soo jeedin say u jilacday yaanyadii maasha Allah waan jijibiyay intii awoodeeda maraq way kan fridge-kan ka soo bixiyay digaag aan daraad shalay aan sameeyay video dhamaadkiisa ka arki doontaan maraqii ka haray ayaan fridge-ka gashtay hadda soo jeedaan karoot iyo baradho ayaan ku soo daadiyay qiyaas loo jarjaray waxa waaye karootada iyo baradhada waxay ka caawinayaan inuu maraqa culeys noqdo oo maasha Allah isku noqdaan maraq lagu cuni karo sabaayad ee ka soo baxda meeshaas waxaan kaloon ku soo darsaday waa baamiyo iyo sabuul malaha sabuulka midka jaalaha kan uu macaan yahay kan kale cad uu ka macaan yahay sweet corn ayaa la dhahaa ka bacdi waa isku huurinaysaa si fiican markay isku yar huurto waxaa waaye biyo yar ku daraysaa waxaan u soo laabtay sabaayadii way easy maxay waan sii diyaarsanayay marka intuu maraqa karaa intana waa u soo laabanayna marka hadda saa u jeedaan asxaabteeda sabaayadii waan fidfidinayaa saliid yar dhexda ka marinayaa kadib waxaa waaye waan duuduubayaa intuu maraqa aan dhex gashanayo yani isku dardarsanayo waxa waaye sabaayadin way isi jilcaysaa shukumaan ayaa meesha igu diyaarsan ayaan gab ku siinayaa maasha Allah ay sii noqonaysaa yaa kaaliska arag wakaasa saas u sameeyaa saa u jeediinba kaaliska arag waaye maraqaya u laabanayna waa kana asxaabteeda maraqii balaan eegno hadda waa u jeedin si iskugu huurtay xawaajiyaal ku dar waa idinka hilmaamay xawaajiyaashaana u jeedaan waa chicken masala iyo mix spices iyo maraq digaag iyo cusbo yar baan ku daray waana idinka hilmaamay qaybtaas ma duubin hadda saa u jeediinba waa kaasa ka bacdi waxa waaye biyo qiyaas ku filan baa ku soo darsan doona sababtoo ah maraq baa la doonayaa inuu meeshan ka soo baxo yaa waa kaasa kaaliska aragan ku dhaca caraf suugo yaro dhadhan macaan leh oo aad u macwaaye
wakaasa marka biyo ayaa kusoo darsanaysaa si ay suugo u noqoto asxaabteeda. keligeed markay si fiican u qaleysmato le biyo qiyaasta waxaa waaye waa ka kormarin kartaa maxaa yeelay suugaa rabtaa inay meesha kaaga soo baxda ama maraq. hadda daboolka u dheeranayaa sabaayadii u laaban doonaa asxaabteeda. wakaasa carfiskii le ka dhimanaa waana kusoo darsaday. hadda daboolka u dheeranayaa sabaayadii iska dubaneynaa tartiibteena insha Allah. waka intaasay ku egto. hadda waxaan usoo laabanay sabaayadii asxaabteeda. hadda bismillaah waan fidfidsanaynaa un fidis iyo saarid dabka unbaa u dhiman marka insha Allah halayla socdo. waa kaasaa aad baan u balaariyay sababtuna waxaa weeye birteeda aad u balaaran u weyn. qiyaas waa ka dhigan kartaa sabaayada. okay waa kaasaa saas markaa u fidisid maasha Allah u noqdo buryar madmarisid yaa waxaa waaye waa dubeysaa on dubistan insha Allah wayna boobsiineynaa asxaabteeda. mar badan baa sabaayad soo geliyay markii alla ay qaban yaa maxay noo tusi waysay hadhihina waxa dhan maxaa yeelay halkii sabaayad mala in wada tusi karo. marka hadda saa u jeedaanbo saas markaa usoo fidisid u saartid waa yara dhaafaysaa. markii qalasho ayaad saliid korka uga soo daadinaysaa. aniga laba nooca u samaystaa sabaayada. marka hore markii korka qalasho waan gadiyaa saliida markaasaan ku shubaa. haddana saana waan samaystaa. marka adigay kugu xiran tahay sabaayada maxaa waaye marbo sibaa u duban kartaa. haddii hoos markay kaaga guduudato qaybta kore saliida daartid ma ku shubaysa daartidna waa ku yara guduudinaysaa wax yaraa ku daadinaysaa. asxaabey hadda waxaa waaye qaybtaas haddana gadinaya uma baahna qaybtan saliid laakiin muhiimada qaybta ugu horeysa waaye. marka waa kaas asxaabteeda waa kasoo dejinaya xabadii koowaad saambay oo eg tahay maasha Allah. xabadii labaad baan soo saartay iyadana waxaa waaye korwey ka qalashay saliid baan kusoo daadiyay qiyaas ugu filan. bacdeen haddana waa gadinayaa. waa kaas asxaabey haddana waxaa waa tiish يعني تيشا استعمالي وكير جدودنا أما قاعدة هايبا ما شاء الله حبدي لبعض نسان بين نقطي كروح البدن ذهبي جاء قيب توصل وكير جدودنا سا كدب محي هذه ولا ماشي يالي شكومان ويل كمركا سارتيد ayaad shukmaan korka sii saari sababtoo qarfaaf bay ka noqonaysaa. waxaa la rabaa sawaayad inay maasha Allah ahaato qalalin ayada dhan shukmaan korka sii saar markaa weelka saartidba maasha Allah tabaarakallah. sidaan bay kusoo baxday. stiilna waan dubayaa qayb kale. qaybtan waxaa saddexdii ugu horeysay aan dubay iyo sidee kusoo baxday quruxda badan maasha Allah. hadda waa ujeediin quraac yar oo qurux badan oo yaa aad u fudud oo aad u macwaayo oo faa'iiday familkaaga. hadda waa kaasahay asxaabteeda sabaayada ma dhameynin laakiin qaybtana jeclaysta inaan idin tuso kadib qaybaha kale iska sii dhamaysto. labadii xab ugu horeysay la ahayd insha Allah waana soo dhamaystiri doona waana idin tusayaa ilaa dhamaadka. walaalahayga sidoo kale waxaa waa video kan dhamaadkiis waxaa ku xigo video kale digaag sida loo samaysto waliba sida martiqaadka markay marti ku joogta u samaysan karta ayaan soo galiyay video dhamaadkiisa. marka ka faa'iideysan ku leeyahay hadda kabsar caleen yar oo carfis ama qurxis baan korka uga soo daadshay. sidoo kale liin dhanaan iyo basbaas baan dhac ku soo siinaya kaal iska aragaan ku dhahay quraac yar oo maasha Allah tabaarakallah ayaa kasoo baxday meeshaas. ahob waad la socoteen qaybtii ugu dambeysayna waxaa waay sabaayadii aan soo dhameeyay maasha Allah sida quruxda badan dahabiga ah ayaa kusoo baxday. kor iyo hoos lagama sheekeyn karaan ku dhahay jiileec inaba caadi ma ahan asxaabay. soo tijaabiya dee like-ta waa free lacag linka ma rabo hala ii saaro asxaabteyda sababtoo ah aad baan u dadaalayaa adinkana dhiirigelinta waa like-ta ii saara aadna waa idinkaga mahad celinayaa mar walba saa ii dhiirigelisaan ii taageertaan iyo saad noo jeceshihiin ba anigana waa idin jecelahay walaalahayga. thank you so much. marka ila socda ila dhamaadka asxaabey lagama sheekeyn karo dhadhanka maasha Allah. saa hore kuugu sheegay ba sabaayada qayb baa ii dhimaneed qaybtii baan dhamaystirayay qaybtaasna waxaa waaye waaba la cunayba maasha Allah. marka qaybtan dubooba waan sii dhiibayaa. wakaasahe qaybtan ugu dambeysa baa idinka tusi doonaa iyo say kusoo baxday. dee waa kaasahe maasha Allah simple and easy aan ku dhahay. waxaa waaye aadna way u macdahay aadna way u fududahay. uga soo tuur caruurta maanta waxaa maalin axad ah guriyay joogaan marka insha Allah galbihii waa soo tuur waqti fiican ba video idin soo galiyay.
ka faa'iideysta idin leeyahay gabdho uga faa'iideeya familka dee waa kaasaa markaa soo dhameeyeyna maasha allah garmash ayada dhan kaale iska aragay kusoo baxday qurux dhadhan macaan caraf lagaba sheekeyn karo soo tijaabiya indhihiina macalin idin marka waa kaasahay videoga xiiwaha la daawado waxaa idin soo geliyey digaag aan inaba caadi ahayn haddii marti ku imaan rabto sidaan aan u sameeyay hadaa u samaysatid aan ku dhahay maasha allah tabaaraka allah way qancinaysaa martidaada waa kaasaa salaam asxaabteyda qaaliga ah duhur waaye waxaa kasoo tuuranay digaag aan inaba caadi ahayn digaag habka ugu fudud oo loo forneeyo maasha allah loo qurxiyo ka faa'iideyso caana garoor baa meeshaas kusoo shubtay inta waxaan ku haystaa digaag 2 kiilo bar ah marti baa u sameynaya marka insha allah waxyaabihii kale idinkagama faa'iideynin balse digaaga saa u sameynaya baa idin tusaya insha allahu ka faa'iideysi wacan soo dhawaada videoga hadduu ku qanciyane like taa nala dhaafin dhiirgelin ay noo tahay noo share garee aada u mahadsan tahay waxaa waaye videogan shalay baan duubay saa hore kuugu sheegayba kan sabaayadana saakaan duubay marka waa isu soo dhejiyey dee hala yaabina gacmahayga ka dareemaysaan qaybta hore cilaana saaran qaybtaana waxaa cilaan ma saaro marka saasaa ku ogaan kartaan inta waxaan kusoo shubay caana garoor sidoo kale yaanyo shishiida waxaa waaye guduud bay ka dhigaysaa dhadhankana way u macaynaysaa sidoo kale tuun aan soo tumay waa toon waa taaskani waa maraq digaag asagana maasha allah dhadhanka u macaynaya sidoo kale waxaan kusoo darsanayaa ayu xawaaji oo meeshaan saaran dhan ya kani waa beef masala basbaas aad u badan uu leeyahay waan jecelahay dhadhankiisa waxyaaran kusoo darsaday sidoo kale kan waxaa waaye chicken masala asagana waxaa waaye wax fiicana kusoo shubaysaa digaaga lagu talgalay waxaa kalan kusoo darsanayaa kani waa huruud turmeric huruud waaye ayada waxyaaran ku daray kuma badinayo sidoo kale waxaan kusoo darsanayaa kan waa mixed spices xawaajiyaal isku jirjiro waaye waxyaaran kusoo daray isagana sidoo kale kani waa paprika ama barbarooniga shiidan saa u taqaanid isagana waxaa kusoo badinaya waa jeclaa caraftiisa sidoo kale inta waxaan ku haystaa wax yar oo xawaaji kani waa liindhanaanta ayadana waxaa waaye haaf dhana ku shubayaa sababtoo dhadhanka digaaga shiirkiisa dhanay dilaysaa hadhowdi dhadhan si kale oo aad u macbuu kusoo baxaya digaaga markuu soo karo oo laga dareemeyn shiirshiir sidoo kale kan waa cusbo ayadana wax yaraan kusoo darsaday intaas markaa isku soo dardartid saliid baad kusoo daadinaysaa oo maxay hadhow saliidda maasha allah ka dhigaysaa xawaajiyaasha iyo wixii baad qaadaysaa waa isku walaaqaysaa si fiican baa isku dhexgelinaysaa asxaabe markaa isdhexgelisaan maxay saliiddii baan ka hilmaamay waa kusoo darsaday waa kana waa kaasa marka isdhexgelisa digaagii meesha ku yaalay oo qaleelka ahaa ayaad gab kusoo siinaysaa maasha allah caaraf lagama sheekeyn karo maasha allah hadda waa kaasa digaaga waa 2 kiilo iyo bar marka saasaa loo ogaado waa kana asxaabteeda digaaga marka hore waa iska soo dhaqaysaa waa nadiifinaysaa biyo cusbo leh ayaa kusoo dhaqaysaa jeermiska dhana kasoo dilaysaa haddaa aragtidna biyo caadi iskaga dhaqay maadaama oo foorno la gelinayo la karinayaba hadda waa kaasaa qaadada ama mikoogana u qaadanaya waa qasayaan ku dhahay gacantaada xataa maasha allah waa ku sameyn kartaa sida si fiican baa isku dhexgelinaysaa kor iyo hoos ilaa uu iska qabsado yaa dhadhanka dhan gudaha ka gala ku dheh maasha allah haddana markaasaa sameysid meesha waxaa igu diyaarsan waa baradho iyo karooto waxaa rabaa inaan korka uga soo daadsho saas baa soo yeelay kadib mikooga dhexgelinaysaa waa isku walaaqaysaa kadib dabool baa dhab ku siinaysaa geesa ayaa iska dhigaysaa 15 daqiiqo camal dhexdaa iska galaan kadib weliba 30 daqiiqa sugaya asxaabteeda 15 daqiiqo ma ahan ka badanaa sugaya howlo kale aad u hayay howlo igu badnaa hadda waa kaasaa saxankii foornada aan ku gelin lahaa ayaa inta soo dhigtay saliid baan soo mariyey digaagii baan rabaa inta inaan kusoo safo waxaa waaye saxankaana foornada kula gelinaynaa marka insha allah haleela socdo asxaabe markaa saa soo yeeshay karootadii iyo maxay ahayd baradhadii baan dhexda kasoo gelgelinaya haddana yaa wallaahi maasha allah
haddaa saan u samaysatid aan ku dhahay dhadhankiisa waa laga sheekeyn doonaa. Dhadhan macaan oo caraf badan oo saliid badan lahayn oo maasha allah uu kusoo baxayaa. Markaas saas ugu soo dhamaystirane waxaa waaye foornadii aan sii shitay way iisii kululaanaysaa. Barbarooni baan kor kasoo saarayaa for carfis purpose only. Qurxina wuu kaaga dhigayaa marmar qaar. Marka haddaa rabina muhiim ma aha barbarooniga waa iska dayin kartaa iyo basalba waan kasoo saaraa iyo sweet corn. Asxaabta waa u jeedaan sabuulkii baan soo saaray. Hadda waxaa waaye ovenkii gelinaya ama foornada wuxuu ku jirayaa 1 saac iyo bar kaamil ah. Kadib ayaan kasoo bixinaya waxaana u geynayaa 200 ama 180 1 saac iyo bar sababtoo ah digaaga waxaa waaye inuu si fiican ka karo waaye. maasha allah tabaarakallah. walaalahayga sidaan quruxda badan dahabiga ayuu kusoo baxay markaan soo dhameynina. maasha allah caraf dhadhan macaan soo tijaabiya aan leeyahay. videoga hadduu ka qanciyane ood intaan nala soo gaartay like share kaban iskugu kaysoo dara aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina sida wanaagsan noo dhiirigelisaan. intaan videos ku kulmeen sidaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.